yaabka fara badan la iyaduna waa arrin ka dhacday gobolada koonfurta ninkan la yidhaahdo mukhtaar robo muxuu ahaa mukhtaar robo wuxuu ahaa hogaamiye jihaadi ah oo ku jira xarakatu shabaab uu ka soo goostay wuxuu yimiday Soomaaliya wuxuu yimid caasimadii wuxuu yiri waan ka baxay fikirkiina waa ka soo laamay inuu qaldan yahayna waan gartay inta abuu noo sheegay maantana wuxuu isku sharaxay inuu madaxweyne ka noqdo gobol kamid ah gobolada dowlad hoosaadka Soomaaliya ama federaalka inuu meel ka noqdo madax buu isku diyaariyay ajiib weeyaan anigu markaa su'aal baan isweydiiyey waxaan isweydiiyey jid wuxuu sitay ninkaasi harig magaciisa la yiraahdo shabaab wuxuu aaminsanaa dowlad diiniya in Soomaaliya laga dhiso wuxuu aaminsanaa in la dagaalamo Ethiopia in la dagaalamo Kenya in la dagaalamo ciidanka Djibouti in la dagaalamo Soomaaliya in la dagaalamo waxa aan ahayn oo dhan wadaad in la laayo waxaan isaga fikirsay in la laayo siduu durba u noqday nin sifiga madani ah dimuqraad ah u tartamaya dowlad halkuu ka soo koray diyaaradda kale كيف تحول قرمو مراجعة سمية فكرية بوجوك قري هالكوك هاللي وشاقي دباتة وأمد أوجيست قربا لقى سامحي هالكي لقى سامحي كون دوب سحب كأوتوميا ما حي أوتوميان وحان سويديي قف كان سياسي الصومالي وقف جربة وقف بكاء هرتا مركو هري تاريخ دادي هري كعذر دارو مدوبيد بيلك أهيد إذا كان لينيسي إجرام كأهيد كعذر دارو لابو تاريخنا بركة عدوداتي شعبي أد كد شيء دتك هاكو سامحان هديكو سامحيان صدح وحلقة قبته عقوبة دادي قادو دنبيجن أبقى شيء هلقوا عقابه الدونك هلقوا عقابه قبل الآخرة أفر ومدو هاكو سامحدو كدب هلقوا سمي الريهابيتيشن هلقوا أقولادو إناد وديار نقو كريسيد إناد نرشا قلي كرتيد لكن هنا إلى هنا أقصى اليمين مدي تفوق إلا بدع فوق أو إسكت يسدون وحوين عجيب وين مختار روبو سوى قرعة معه ولو قسي هري وما رتر كاين تلاقى صباح مدحوين على النقضي عقلي قفك عجيب والفكرة دتك بني آدمك مركو هوري ديمقراط هاو أم بصدي جماعة الإسلامية في مصر كوي أول رسالة دقالمية حبس قال الجريه شان إيا 14 سنة يسميني واحد هذا مراجعة ديبو إيك ديبو فيرين أخرين waxay soo saareen natiijo ah inay qaldanayeen inay dambiilayaal ahaayeen inay ummadda masaarida cudurdaar weydiisteen inay waraaqad kutub qoreen boqolaal ah inay intaas oo mufakkir ay ka soo dhaxbaxeen inay xabsiga ay ku bislaadeen kadib markay soo baxeen ay dhahdeen tubnaa ila shacbigayga baan u toobad keenay shacbigiina uu aqbalay markaa bay la baxeen xisbi cusub ay samaysteen annaka waxaa ma jiro waa ilgibirsi qabla an yartadda ilayka darfuka buu noqonayaa qof kale wadaad buu yahay waran noqonaya waran uu yahay wadaad buu noqonaya darkii afgaan uu sitay koodhi karaafad bixinaya markaarba ma hadi taxawulaat aljuduriyya isbeddelkan radikaalka ah ee qofka ku dhacaya hakada jildiga la beddelaya hakada biduun muqaddimaat waxay ku tusaysaa in aan siyaasadda u bisleen in aan nahay faashiliin inay yihiin raggaas in la iska ilaaliyo anigu markaas waxaan ka soo saaray saddex arrimood markii horeba sirdoon buu ahaa ninka wuxuu matalayay bilaa xayaa kama xishoonayo kamana cabsoonayo reeraha xataa watana kama baqaya anu qof waxaan ahay xorriyadda iska haysta halkaa waan iska fadhiyaa runta un baan sheegaya waa ninkaasi markii horeba uu shaqaynayay wuxuu u shaqaynayay reer galbeedka raba inuu islaamka suuraddiisa bedelaan iminkana shaqadii buu dhameeyey haddii kalmee ogolaaday inuu saasta soo galo waa kow labo arrinta labaad ee arrintaa keensanaysa waa maxay markii horeytaba wuxuu u galay shabaab inuu madax noqdo uu ku gaari kari waayey wuxuu yidhi meesha hadda way ka dhamaatee halkan kale tag saa madax ku noqon kartaa waa talabaad wey waa ixtimaalka saddexaad inuu yahay qof doqona oon caqli lahayn qof bilaa caqli ah kuwa rumaysanayana inay caqli lahayn isagu waa doqon siyaasi qabiya atbaacdiisuna waa aqbiya markaas intaas baan kaga baxayaa waa mushkila dadkeen waxay moodayaan wax yaroo dusha waxaan ka fajacay dharkiibuu iska soo dhigay dhar kale soo xidhay mid buu isdul joojiyey sidii maaragtay ciidamada sidii madaxda reer galbeedka karaafaad iyo koorna uu soo gashay halkan buu soo gashaday xataa suwarka foolxumadooda yani isbedel baan u baahanay magaran mushkiladaasina waa arrinta saddexaad u baahan qofka Soomaaliga war generationkan diinta ku ciyaaray
iyo generation siyaasadda ku ciyaaray dhalinyarada aqoon-yahanka Soomaaliyeed waxaan ugu yeedhayaa inaan orano laa nima rabno laa nuriidukum nima doonayno mujrimiin baa tihiin gacmihiina dhiig baa ka da'aya maskaxdiina dhiig baa ka da'aya qalbigiina dhiig baa ka da'aya qatalaa tihiin mujrimiin baa tihiin safaaku addimaa baa tihiin dhiig baa daadinaysiin laysa ladaykum raxma naxariis ma haysaan تريدون أن تحكمونا إلى الأبد إن ولي نحكتان بان ربطان أنكم ديمقراطية أن ربنو إيا السنان أن ربنو إيا عدالة أن ربنو إيا الدين أن ربنو ورنبت قليو وحان دونينا إنا كنا ولانا نبض وحان دونينا إنا نعبسون وحان ربنا إنا نعبسون وحان ربنا إنا نولانو وحان ربنا إنا أبد كيغو اسكول ديكتان وحان ربنا إنا أبد كيغو جامعة قلان وحان ربنا إنا نختار هلو وحان ربنا جد إنا هلو من كسمايو إلا جيبوتي اسكو حريا إلا أديسابا اسكو حريا إلا إريتريا اسكو حريا وحان ربنا ورشدو وحان ربنا نلل أن نعيش زي الناس صدقنا أنه لأنه إن المساجد وصور نقدام بان ربنا وخبر الجماعة الله أخيا في عنيد وان فرحنو وحان ربنا إن نعيد عيدنو وحان ربنا إن جدد كمرنو وحان ربنا إن عبسون وحان ربنا إن المدحوين كعبسون وزير كعبسون وحان ربنا إن بوليس كعبسون وحان ربنا إن وراقب أنسيتو مركا اللي ويدي أنا هذا مسيتو maxaa in la igu oran oo laga yiraahdo maxaa taqaanaa waxaan rabaa inaan beera samaysto waxaan rabaa inaan macdar furto waxaan rabaa meeshaan doono inaan ka furto inuu qofna igu oran maxaad u furatay maxaad samaynaysaa qaanuunka inaan ilaaliyo bas laakiin inuu kiishalay dilay maanta madaxweynaha ku noqon yiraahdo هذا الكلام الفاشل marka ikhwaani fillah oo waliba odayaal reeraa garab fadhiistaan dhadeen waa inankayagi shalay maruu ku diina waa inankaagi maanta markuu yimidna waa inankaagi ma hakada tuuradu al-ibil sida geel law sa Soomaaliya kuma soo noqon karaysa ikhwaani fillah kuma soo noqon karaysa Soomaaliya sidaas qofku haduu toobad keenay miskiidka ha galo ha fadhiyo hal iluubay akhi 10 sano 20 sano kadib ha ku soo noqon doonayo hal xisaabo ayna maxkamadda xisaabisay waa problem waxa soo arintaasi waa muhiim